madaxweynuhu wuu safray isagoo u sii jeeda guriga ilaahay ee xurmada leh taasoo ahayd markii ugu horreysay ee madaxweyne talada haya Somaliland sawiradiisa iyo muuqaalaba lagu baahiyo baraha bulshada isagoo xashka jooga iyo habmaamuuskiisaba shacabka reer Somaliland ayaa si weyn ugu farxay markii ay arkeen madaxweynaha oo xajinaya hooyadii iyadoo sawir laga soo qaadayna hadalhayntiisu maalmo ka sii socotay baraha bulshada balse waxaa mar kaliya baraha bulshada lagu arkay madaxweyne Muuse Biixi iyo xubnihii ugu muhiimsanaa waftigiisa oo sawirra kula jira mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo ay ugu cadcad yihiin wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad iyo midka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle sawirrada ayaa muujinayay madaxda Soomaaliya oo wada dhool cadeynaya in sawir lala galo siyaasiyiinta reer Soomaaliya ma aha wax caadi ka ah gudaha Somaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa si adag oo dareen leh uga hadli jiray arrimaha Soomaaliya kaas oo hore ugu eedeeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Mr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro sawirro lagu daabacay wargees ka soo baxa magaalada Nairobi kuwaasoo sheegayay inuu si qarsoodi ah ula kulmay madaxda Soomaaliya waxa la yaab leh waxa aan la filaynin waxa mujaahidiintii koosaar lahaa ee lixda lahaa ee aadan Saleebaan lahaa ee aadan Shiina lahaa حسن يونس هبرها أحمد دقحها عبد الله يوسفها قلت كقبن ما يار مانتا مركا عينو مقلو حزب الصومالي هذا ودور ييرو دلك حكوميو أيا حمر لقصو حبليين أيا أي حمر صوت خمي إيمان حرية يسحنا حوالات رأي دولتها إزوال رقشي شيكو بلالي يا حمر يا بريو إيجا فرقة بتدي ما تعرف أردت كسب بحد نيروبي شرائط النيروبي قرية عالم كشرائط كوف بين قرية وديلا كسو كرناي قرنا من السوماليلاند وأرين أن وري هروجا عن حزب يجدوميا سوماليلاند أنت أجرتي way jireen ashxaas siyaasi ah oo iska shaqo taga oo soo noqda oo hadaba qaar joogan oo u hogaaminaya haddana wadan waa jiraan oo muuqda hadda laakiin gudoomiye xisbi iyo guddigii fulinta oo 12 oo shir la gala koonfur oo waliba ka hadla waa midoobayna oo waliba si dhuumasho u gala oo marageedina kala yahay oo maraha maanta cid waliba hayso waa dhiilo ku soo kordhay jiritaanka Soomaaliland iyo habka ay u soconaya qarnadeedii oo qarankoodii u baahan yahay in arinta si qarannimo loo eego gudoomiyaha wadani oo gudoomiyaha baarlamaanka ana oo ninka saddexaad ee dalka oo bartokolka kule ka socon mayso oo sawirada isu geeyay iyo kulmiye isu geeyo sawirada kulmiye jaraadka star ma soo saaro telefishanka Saab ayaa Dr. Cirro wax ka weydiiyay sawirada madaxda Somaliland ay la galeen kuwa Soomaaliya iyo sida uu u arko xukuumaddu isku heli mayso in shacbigana marka la hadlayso tilaad cadawgeena koowaad waa Soomaaliya iyo inay de sawir la soo gasho madaxdii Soomaaliya labada isku heli mayso marka taas waxay tusinaysaa Soomaalida tilaana ku sheegi maayaan amalkaaga ku sheegi marka labada mid umada haw sheegaan Soomaaliya cadow baynu nahay iyo Soomaaliya waan soo sawiraynaa waa dhannahay arintaasi shacbiga in been loo sheegayo bayna tusaysaa wafdiga madaxweynaha ee la kulmay kuwa Soomaaliya sida sawirada lagu arkay ayaa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed oo isagu mar hore lagu dhaleeceeyay inuu magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya kula kulmay siyaasiga reer Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sawiradan ayaa baraha bulshada qabsaday maalmihii ugu dambeeyay iyadoo ay baahiyeen siyaasiyiintii ka socday xukuumadda federaalka Soomaaliya kuwaas oo ku dul qoray qoraallo ay ku sheegayaan midnimo walaalnimo isjacayl iyo wada shaqayn iyadoo wasiiradii laga xaqiijiyay run ahaanta sawiradanna uu ka mid ahaa wasiirka maaliyadda Dr. Beyle oo isagu reer Somaliland ah qofka muwaadinka Somaliland waxay ognahay hadduu halka xil ka qabtay inuu yahay dambiile aynu oo qoonsan ilaa madax soo qorto
مسامحادنا markuu xilka ka tago wadanka looma ogolaado markuu isagoo aan wafdi rasmi ah leenoo cilaamin xitaa wafdi rasmi ah hadii ku jiraan waynu diidnaa wada hadallada waxaynu diidnay taas kamida markuu madaxweynuhu muwaadin Soomaaliland oo xil halka ka hayo weyn uu agtaagii uu isla sawiray iyana de waxa muuqata sharcigii aynu lahayn waliba kaameynka lagu galay kulmiye ku galay sharciyadaas raynaysadii imka inay sharciyadii hooseyso wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa mar uu la hadlayay laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America u sheegay inay iyagu dalbadeen kulanka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo aanay haba yaraatee wax siyaasad ahi ku jirin taasoo madaxweynuhuna uu si wanaagsan u soo dhaweeyay madaxweynaha iyo wafdigiisa iyo annagu waxaan wada deganay hal meel qasri ayaan wada deganay masaajid ayaan isku aragnay aniga iyo wasiirada kaleeto oo dowladda federaalka ka socday ayaa u tegay madaxweynaha oo salaamay iyo wafdigiisa isaguna si qurux badan oo Soomaalida walaalay soo hiloobay ayuu loo soo dhaweeyay oo sharaf ku jirto si kastaba ha ahaatee xukuumadda Somaliland ayaan iyadu war rasmi ah ka soo saarin kulankan hadalhayntiisu shacabka sida weyn ugu dhaxbaahday 48 saacadood ee ugu dambeeyay balse madaxda Soomaaliya ay yihiin kuwa iyagu baahiyay sawirada dadkana uga waramaya sida ay wax u dhaceen Axmed Maxamuud Yuusuf telefishinka Saab Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida